abwaan hadraawi wuxuu yiri tira siman sagaal tuur soddon keen sideed hoo waxa hadhay bal suuree Saynab ciyana waxay tiri 6,600 iyo 66 baan kugu laray aniguna waxaan iri 7 waxaan kala maqnayn 10 daraarood sharmaboyna wuxuu yiri eber 4 suldaan seeraarna wuxuu yiri 275 ama 275 haddaba muxuu yahay farqiga u dhaxeeya suugaanta Soomaaliyeedse miyaysan ka mid ahayn taariikh iyo tiro bal ka waran qofkii suugaanta ku daro tiro ama taariikh in la yiraahdo qololin ayuu ka mid yahay in la yiraahdo muslim maaha in la yiraahdo balaayo u shaqeeya taa waa qalad mana ahan wax saxa suugaanta Soomaaliyeedna waligeed ayay ku jirtay tiro iyo taariikh waligeedba way ku jirtay tan labaad Soomaalidu waxay tiraahdaa nabiyow nin waliba afkii kugu amaan lambarada iyo xisaabta waa wax jira waa tiro la isla garanaya dunida dhan gaaladu waxay ka aaminsan yihiin iyo lambarada waxay u kala garanayaan annagu ma garanayn inagu haddii aynu nahay dad muslimiin ah gaar ahaan Soomaalida lambarada iyo waxaynu u naqaana waynu isla garanaynaa oo qof waliba waa u faahsan yahay laakiin in la yiraahdo qofkii waxa weeye heestiisii lambar laga helo lambar hadaad Google iska geliso adigu aad wax u garanayso inay gaalada wax kale u garanayaan inagu waxa aynu garanayna oo aynu ognahay waa Qur'aanka Kariimka wuxuu ka kooban yahay tiro xarfihiisa tiro ayay ka kooban yihiin ayadihiisuna tiro ayay ka kooban yihiin juskana tiro ayuu ka kooban yahay marka wax waliba tiro ayay ka kooban yihiin marka haddii ayadihii Qur'aanka aad suugaan ahaan tiro ku sheegto oo tusaale juska 30ka ah aad suugaan ahaan tiro uga sheegto inuu 30 yahay ma ahan wax uu gaal u garanayo inaad u garanaysa Qur'aankaaga Kariimka ayaad sheegaysaa marka suugaantu tiro iyo taariikh waligeedba way ka mid ahayd wayna ka mid ahaan doontaa marka dadkaan heesooda la daba ordaya ee la daba galaya ee la oranayo waxa weeye qoladaas uu ka tirsan yahay iyo xaqu ka booday iyo xaqu ka dhacay waxa weeye waa qalad aad u weyn sidoo kale waa dambi qof walaalka waxa weeye muslima inaad daba gasho dad badan ayaa ka jawaabay heesohoodii iyo macnaha lambarada lagala jooday iyo wixii laga waday dad badan ayaa ka jawaabay ayagoo ka jawaabay ayaan wali laga qancin oo waxa la doonayaa in qofka wax uusan ahayn dusha laga saaro ama la mariyo qaar kalena kama aysan jawaabin oo wixii ay ka wadeen wayba garanayaanba waxa weeye ayaga Allahooda ayaa isla og marka inaad qofka waxa weeye dalqada gacanta ka geliso oo aad tiraahdo suugaan waliba ama wax waliba oo lambar uu ku jiro waa qalad ma aha wax suurtagal ah wax waliba oo lambar uu ku jira deetara dad baa loogu shaqeynaya ama qolooyin baa lacag laga qaatay ama shaydaan la daba galay taa waa qalad ma ahana wax saxan diinu tusaale kale soo qaadano salaadaha la tukado tiro ayay ka kooban yihiin salaad waliba rukuucdeedii iyo i'tidaalkeedii wax waliba waxay ka kooban yihiin tiro sidoo kale hadii tiro ahaan aad ku soo jamciso ma ahan inaad waxa weeye wax kale ka waday ee waxa weeye waxaad adigu u garanaysa iyo waxa bulshada ay u garanayaan baad waxa weeye ka hadashood suugaanaysay marka waxa weeye suugaantuna ama waxa weeye heesa ahaato ama waxa weeye gabay ha ahaado ama jiifta ahaato ama waxa weeye geeraar ahaado nooc waliba oo suugaanta kamid ahi tiro iyo taariikh labadu way ku jiraan marka waxa weeye qofka in la daba galo la daba ordo waxa weeye been laga faafiyo xumaan dhabarka loo saaro ma ahan wax wanaagsan adiga waxa weeye xumaanta iyo balaayada faafinayana kuma wacno waxa weeye qofka walaalka dhibaateynaysayna uma wacno marka waxa weeye dhibaatada farada badan aynu umada ka joojina abwaan hadraawi wuxuu yiri tira siman 9 tuur Saynab ciyana waxay tiri 6,600 iyo 66 baan kugu laray aniguna waxaan iri 7 waxaan kala maqnayn 10 daraarood sharmaboyna wuxuu yiri eber 4 suldaan seeraarna wuxuu yiri 275 ama 275 haddaba muxuu yahay farqiga u dhaxeeya suugaanta Soomaaliyeedse miyaysan ka mid ahayn taariikh iyo tiro bal ka waran qofkii suugaanta ku daro tiro ama taariikh in la yiraahdo qololin ayuu ka mid yahay in la yiraahdo muslim maaha in la yiraahdo balaayo u shaqeeya taa waa qalad mana ahan wax saxa suugaanta Soomaaliyeedna waligeed ayay ku jirtay tiro iyo taariikh waligeedba way ku jirtay tan labaad Soomaalidu waxay tiraahdaa nabiyow nin waliba afkii kugu amaan lambarada iyo xisaabta waa wax jira waa tiro la isla garanaya dunida dhan gaaladu waxay ka aaminsan yihiin iyo lambarada waxay u kala garanayaan annagu ma garanayn inagu haddii aynu nahay dad muslimiin ah gaar ahaan Soomaalida lambarada iyo waxaynu u naqaana waynu isla garanaynaa oo qof waliba waa u faahsan yahay laakiin in la yiraahdo qofkii waxa weeye heestiisii lambar laga helo lambar hadaad Google iska geliso adigu aad wax u garanayso inay gaalada wax kale u garanayaan inagu waxa aynu garanayna oo aynu ognahay waa Qur'aanka Kariimka wuxuu ka kooban yahay tiro xarfihiisa tiro ayay ka kooban yihiin
ayadihiisuna tiro ayay ka kooban yihiin juskana tiro ayuu ka kooban yahay marka wax waliba tiro ayay ka kooban yihiin marka haddii ayadihii qur-aanka aad sugaan ahaan tiro ku sheegto oo tusaale juska 30 ah aad sugaan ahaan tiro uga sheegto inuu 30 yahay ma ahan wax uu gaal u garanayo inaad u garanaysa qur-aankaaga kariimka ayaad sheegaysaa marka sugaantu tiro iyo taariikh weligeedba way ka mid ahayd wayna ka mid ahaan doontaa marka dadkan heesahooda la daba ordaya ee la daba gelaya ee la oranayo waxa weeye qoladaas uu ka tirsan yahay iyo xaggu ka booday iyo xaggu ka dhacay waxa weeye waa qalad aad u weyn sidoo kale waa dembi qof walaalka waxa weeye muslima inaad daba gasho dad badan ayaa ka jawaabay heesahoodii iyo macnaha lambarada lagala jooday iyo wixii laga waday dad badan ayaa ka jawaabay ayagoo ka jawaabay ayaan wali laga qancin oo waxa la doonayaa in qofka wax uusan ahayn dusha laga saaro ama la mariyo qaar kalena kama aysan jawaabin oo wixii ay ka wadeen wayba garanayaanba waxa weeye ayaga allahooda ayaa isla og marka inaad qofka waxa weeye dalqada gacanta ka geliso oo aad tiraahdo suugaan waliba ama wax waliba oo lambar uu ku jiro waa qalad ma aha wax suurtagal ah wax waliba oo lambar uu ku jira deetara dad baa loogu shaqaynaya ama qolooyin baa lacag laga qaatay ama shaydaana la daba galay taa waa qalad ma ahana wax saxan dii aynu tusaale kale soo qaadano salaadaha la tukada tiro ayay ka kooban yihiin salaad waliba rukuucdeedii iyo ictidaalkeedii wax waliba waxay ka kooban yihiin tiro sidoo kale haddii tiro ahaan aad kusoo jamciso ma ahan inaad waxaa weeye wax kale ka waday ee waxa weeye waxaad adigu u garanaysa iyo waxa bulshadaada ay u garanayaan unbaad waxa weeye ka hadashood suugaanaysay marka waxa weeye suugaantuna ama waxa weeye hees ha ahaato ama waxa weeye gabay ha ahaado ama jiifta ha ahaato ama waxa weeye geeraar ahaado nooc waliba oo suugaanta ka mid ahi tiro iyo taariikh labaduba way ku jiraan marka waxa weeye qofka in la daba galo la daba ordo waxa weeye been laga faafiyo xumaan dhabarka loo saaro ma ahan wax wanaagsan adiga waxa weeye xumaanta iyo balaayada faafinayana kuma wacno waxa weeye qofka walaalka dhibaataynaysayna uma wacno marka waxa weeye dhibaatada farada badan aynu umada ka joojina